inkastoo weli muran sharci uu ka taagan yahay ayaa haddana waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dhaariyey gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaana ay dhaarintani ku soo beegmaysaa xilli weli gudoomiyihii hore uu ku adkaysanayo inuu yahay gudoomiyaha sharciga ah ee maxkamaddaasi inaan si daacad ah u ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka iyo inaan u guto dhammaan xilka iga saaran xafiiskayga sida ay ku jirto danta cadaaladda oo kaliya barakallahu fiik gudoomiyaha cusub ee maxkamadda loo soo magacaabay ayaa xilligii dhaarinta hadal uu ka jeediyey goobtii ama munaasabadii lagu dhaarinayay waxa uu yidhi waa xil miisaankiisa leh waa xil mas'uuliyadiisa leh ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu asturo oo ii fududeeyo oo iga dhiga mid ku sifooba aayadihii uu hadda sheekhu inoo akhriyay hadii la hayra helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaada ummadda Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaduna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga haddii ay noqoto horumar haddii ay noqoto amni iyo haddii ay noqoto kordhac dhaqaale dhammaantood waxa aasaas u ah in la helo cadaalad